madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ka qayb galay maanta munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayay 39 guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada wadankaasi Jamhuuriyadda Jabuuti. Wariyayna Mikael Rashiid Barre ayaa warkan soo diray. ciidamada qalabka sida ee wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaaldegay sanad guurihii 39 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamadaasi. munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xerada Sheekh Ismaan oo ku taala xaafadda Balbala ee caasimadda wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, ra'iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka difaaca Cali Xasan Bahdoon iyo waliba xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo baarlamaanka. waxaa intaa weheliyay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo sidoo kalena goobtaasi lagu casuumay saraakiil ka socota ciidamada shisheeye ee saldhigyada kula wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti. munaasabadda ayaa ugu horreyn waxay ku bilaabatay safaf dhaadheer oo ciidamadu ay ku muujinayaan hanaanka istiraatiijiyadeed iyo waliba tababarada caalamiga ah oo ciidamadaasi ay haystaan. waxaana intaa kadib goobtaasi laga akhriyay khudbad sanadeedkii loogu talagalay waxqabadka ciidamada iyo waliba waxyaabihii u qabsoomay, iyadoo goobtaasina uu ka akhriyay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti. intaa kadib ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday gaardigii ama difleegii ciidamadaasi ay ku marayeen maanta oo kale marka loo eego sanad guuro walba, iyadoo goobtaasina ciidamadu ay bilaabeen inay halkaa gaardi ku maraan. wasiir Cali Xasan Bahdoon oo isagu ah wasiirka difaaca ee wadankani Jamhuuriyadda Jabuuti horta waxaa leeyahay ciid mubaarak ciidamada qalabka sida rag iyo dumar dhalin iyo waayeel. waxaan leenahay waa ciidii qaran, waa ciidii dariska, ciidii calanka. waxaa markaa raggii aabaha ka calanka weeyaan ciidanku